iyadoo shalay magaalada Garowe caasimadda Puntland lagu doortay madaxweynaha cusub ee Puntland 2019-2023 سعيد عبد الله دني iyo waliba ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shacabka ku nool degmada Jariban iyo deegaanada hoos yimaada waxa ay u sameeyeen soo dhaweyn ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee Puntland 2019-2023 kulan ka dhacay hoolka shirarka ee dugsiga sare ee degmada Jariban ee gobolka Mudug ayaa qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalayaasha halkaasi waxa ay ku soo dhaweeyeen madaxda cusub ee Puntland iyagoona sidoo kale sugoontin iyo waliba duco u sameeyay madaxweynihii hore iyo maamulkii hore ee Puntland ee waqtigiisa u dhamaaday boqolkiiba boqol waxaan hambalyeynaa dawladda cusub soo dhawaada ma dawladayadii baa tihiin Soomaaliya oo dhan baad u tihiin madax Puntland baa u tihiin annaga reer Jariban aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaan kula dardaarmaynaa madaxweyne dawladdii hore ee wixii qabyada ka ahaa oo qabyo badan baa Jariban taala oo Puntland taala qabyada Jariban taala oo Puntland taala meel walba taala hadda adaa laga sugaya hadda alla dhameystirkeeda midkaan ku danaagsanna Allah nooga dhigo dani waxaan leeyahay hambaliyo xilka aad qabatay Ilaahay ha kugu asturo Ilaahay saasan ka rajaynayaa intii madaxweynihii hore qabtay ama ballan qaaday oo naga maqnaana Ilaahay waxaanu ka barinay inaanan madaxweynihii kala tabin baan Ilaahay ka barin mid noo buuxiya ama nooga badiya baan Ilaahay ka barin inuu noo noqdo taageero buuxnaan siinaynaa haddaan nahay gabdhaha reer Jariban anoo magacoodii afkoodii ku hadlaya ayaanu taageeray guul baan leenahay garabkaaga Allah galo waxaan noo muuqanaya isbedel waxaan muuqanaya baraare iyo nabad iyo horumar burwaaqa muuqatay farxadeena caadi ma ahan heer kala joogo madaxweynaha waan u duceynaynaa waqti waxaan joognaa maanta waqti in loo baahan yahay in loo duceeyo mucaarad ma baahna madaxdii hore xilka wareejinaysana ayana waxa leenahay Allah nabad yeelo waxa qabateen laakiin madaxweynaha cusub waxaan kula daarmeynaa amni iyo horumarka Puntland ka socdo inuu si laba jibaaro waa nin hore loo yaqaanay loo soo tijaabiyay oo dawladda federaalka iyo meelo badan ka soo shaqeeyay waxaan leeyahay madaxweyne Saciid noqo kii deegaanadiisa iyo goboladiisa Puntland wax qabadkooda kor u soo qaado noqo baan leeyahay waxaan leeyahay oo kula dardaarmaya madaxweynaha inuu noqdo madaxweyne dhexdhexaad ah inta markaan ka gudbo waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaheenii hore oo tagay mudane gaas waxaan leeyahay horta madaxweynaha gaas waa madaxweynihii ugu horeeyay oo annaga wax qabadkiisu aad noo taabto oo na soo gaara oo haddaan nahay dadka gaariwaa degan iyo wadaagsin wixii xagga ka ama degmada Jariban shirkan dadka soo abaabulayna waa salaamahayaa dadkii iga horeeyay baa wixii la oran lahaa yiri wixii ducaaha iyo wixii ballanaha iyo wixii la oran lahaa waanu niri dadka Jariban isku dannahay isku wad madaxweyne ku soo dhawow Jariban oo ku hambalyeynaysa madaxnimada aad qaadatay madaxda aad maanta noqotay anaguna gacan baan ku siinayna waxaanu kala taxawakaar ku rajaynaynaa inaanu taxaway Jariban lama gaari waa baa la oran jiray aysan noqon maanta lama gaari waa oo aanu degdeg ku aragno oo aanu aragtidaadaan u bugnaa inaad noo timaadid inaad wadankayga soo booqatid inaanu ku aragno wax qabadkaaga waxtarkaaga waanu ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan ku hambalyeeynaa mudane madaxweyne noo imow عبد الخير محمد جامع جبلان TV جريبن